السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام الصومالي محمد ملك استود أدونك كجوكتين وولاشين وبحور سمي مركلة إيطالية ثلاثة أسبوعا وحن قصو قاضنا يا حنون كلي هذا كوفيد-19 أما كورونا فيروس إن عاوقا أد أكتين أو أدونكو دان بنداميكا كو نقضي أو ميل والبا كفافي China كسو بلوضي إيطاليا كحكتو حدنا سيارة واشنطن ماشي ugu badan oo saddexaad ayay tahay waana meeshan anigu deganahay isbitaalkan ka shaqeeyana dadka aan waxaan ku jirnaa anaga frontiga ah oo dadkii la shaqeynaya shaqooyinkeena marka guryaha kuwa laga qaban karo ma aha walaalayaalo waxaad moodaa in dadka iyagu diyaarba u ahayn inaysan aaminsaneynba waxaan siday u dhacayaan waxaad moodaa ayaga wax karayaba inuu jirinba xanuunkan aad sheegaysa iyo waxaan aad ka hadlaysa iyo walaalayaalo wallahi waa yaab iyo ama kaag maalin dhaweyto ilaa ay hadda waan la yaabanahay dadkeena sidaysan ma uga dhacdhacsanayn waxaan iyo sida uu yahay iyo dhibkiisa maba ay ogaba wallahi taxadarka waa muhiim ilaahay wuxuu nagu yiri taxadara dadkeeni markaa ku tiraahid walaalayaalo hay soo dhawaanina inaan maaragtay dadku hadda istaaftaan maaha cudurkan waa jeermis taabashada iyo hindhisada iyo la isugu gudbiyo iyo maaragtay qufaca halka aanu iska salaano waxay ku leeyihiin waxay adigu halkan baad ku kodhayo waxaad aaminsan tahay miya in oo ruuxaas anagu ma aaminsanino qadartaanu aaminsanahay war qadartu anagu waa aaminsanahay ilaahay kuma oranin wadada gaariga maraya isku dhig bal inuu ku dardaro iyo in kala arag oo lagu qoray may ilaahay wuxuu ku yiri wadada iska dhinacan eeg iska fiiri waa in aad taxadarto war taxadarku waa muhiim xanuunkan waa xanuun adduunyadii oo dhan ay ka yaaban tahay ma garatay waa in taxadarka la badiyo waa inaan kulligeen dadaalno waa inaan taabashada yareyno war magaaladan oo dhan shutdown baa laga dhigay magaaladan aan deganahay waa shutdown waxaad moodaa in maaragtay nala yiri bandow baad ku jirtaan waa taxadar la dadaalayo oo dukaamadii maanta adeegii xataa wax yar baa la soo ogolaa qaarkood waxaa la oranayaa hal wax ka badan ma qaadan kartid muxuu ahaa wadooyinkii waxaad moodaa magaalada inay maran tahay war ummadii oo dhan meelihii dadka lagu cayaarayay ilmaha lagu ceersinayay waxaa la yiri ma la tegi karo maqaayadii waxaa la yiri cunada dalbo laakiin ma la fariisan karo dadaalka intaas la eg dadka muujinaya oo wadankii oo dhan saas uu yahay baa waxay ku oranayaan Soomaalidu adigu ilaahay ma aaminsanid miya maxaa adigu waa maxay waxaan qadartii aawe war ilaahay dadaaluna yiri waa in la dadaalo gacmaha waa ina u dhaqano sidii in la yiri gacantiina basbaas idinkoo ku taabtay indhihiina ku taabta ma yeel lahayd may gacanta waa inaad xoog u dhaqdid waa inaad ku sugtid oo jeermiska iyo caabuqa aad ka dhaqdid haddaad taabatay in case meel qofka uu taabtay si aadan wajigaaga ugu taabanin dadaal weyn baa laga rabaa arrintan cayaar ma aha magaaladii arrintan cayaar ma aha magaaladii oo dhan ayaa wallahi iyo isteedyadii oo dhan iyo Italy waad aragteen tan ka dhacday Seattle Washington waxaan nahay magaalada saddexaad oo aad looga cabsadanayo oo tirada numberka ee number high noqotay dhimashada iyo waliba dadka laga helay markii hore China ahayd waxa ku xigay Italia hadda waxa ku xigta Seattle Washington annaga dadka uu aad ku saameeyay ayaan ka mid nahay marka walaalayaalo Soomaaliyeed qadartu way jirtaa taxadarku wuu jiraa laakiin ilaahay hadduu dhihin naguma dhacaayo waa taxadar xumo aan taas u aqaanaa marka caruurta ha la yiraahdo ha taabanina wajigiina dadka waaweyn fadlan ha u tegina ka ilaaliya kala hadla telefoonka waxaad u goyn kartiin u geeya yaanan qofka khasab iska soo booqadii iyo isku imaansho iyo aroosyadii la tagaya iyo waxaas aqli gal maaha aroosa la sheegay jira war dadkii kala dhana shutdown laga dhigay idinkana aroosa ka hadlaysin war meesha ka kaca sida isku dhaama taxadara xanuunkan waxaan la yaabay aroos waxa lagu yiri waxay aroos inuu jirin ma ogtahay sabtidii hadda war adduunki dhana la xiray adduunki dhana xiran Soomaalidu waxay ku leeyihiin aroos baa jira arooskii inuu booliiskii maada mar dhow albaabada idinka xiro ma ogiye idinku waxba idin ma karaan habar baa darooriyeyso oday baa dareen galay andanay maleeyahay heelada inoo wada ayaa maqli jiray waa sidii joogtaa hadda governor baa saan yiri iyo Soomaali maba qusaysaba qaarkoodna Soomaali waxay dhaheen annaga 30 sano ayaa waxaan soo marnay ma ogtihiin maba coronavirusku maba nagu dhici karo qaara aaminsan war goormay talaalkeeda qaateerays iri yaa ma talaal bay qaateen dadkan cudurka ka baqi mayaanba war hooy war hala is jiro war hala dadaalo war ilaahu na xafid